wafdigii wadanka Soomaaliland ka socday ee madaxweynaha Soomaaliland hogaaminayay ayaa haatan waxa ku soo kordhay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo ka yimi in labada wasiirba kana mid aha wafdigii heerka qaran ee shirkii ku dhexmaray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya wadanka Turkiga haddaba wasiirka arrimaha dibadda iyo in wasiirka madaxtooyada ayaa waxaan jecelahay bal in aan wax ka weydiiyo shirkii halka ka dhacay walow aan madaxweynaha ka wareystay booqashada bal maadaama labadan mas'uul ay hadda ay ka yimaadeen wadanka Turkiga ayaa waxaan jecelahay bal in aan ku horeysiiyo Maxamed Biixi Yoonis oo aan iraahdo sacaadatul wasiir bal waxaad horta nooga warantaa qodobadii ka soo baxay shirkii ka dhacay Turkiga. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad ula socoto aniga iyo xirsi iyo shan nin oo kale guddiyo madaxweynuhu magacaabay inay ka qayb galaan wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa tagay dalka Turkiga 4 cisho socday wadahadalladaasi aad iyo aad baan u dadaalay haddaan nahay waftigii Soomaaliland ka socday inaanu danta Soomaaliland oo muhiimadeedu tahay goon isu taageeda xorriyadeeda iyo sidii laba wadan oo walaalo noqon lahayn labada wadan wada hadlayeen aad uga shaqeynay wadahadalladu waa fiicnaayeen waxa ka soo baxo ugu murti weynaa si ay ugu muuqato arrinka suuqa oo maanta markii ugu horeysay aan isla garanay in la cambaareeyo oo si aad loo cambaargareeyo dilkii foosho xumaa ee dalka reer Soomaaliland ku dhacay taasoo aad loo garowsaday aanan aad ugu farxnay waxa kaloo ka soo baxay arrimo badan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin in secretariat joogto ah laga sameeyo dalka Turkiga sida wadahadalladan u noqdaan wadalaha serious ah waxaanu ka wada hadallo kale sidii road map loo sameyn lahaa sidii loogu talagali lahaa inay hadii loo baahdo aanu khubaro ama looyaro caalami ah arrimaha iyaga dhex galaan sidii aanu uga wada hadli lahayn ee u wargelin lahayn hay'adaha caalamka ee waaweyn annaka iyo Soomaaliya iyo Turkigu iyo wadan iyo maaragtay arrimo badan oo kuwa la mid ah oo aad u wanaagsanaa marka waxaan filayaa inay guulahayd waxaan filayaa inay wada hadalladan si socon doonaan aan insha Allah aanu gaari doono sidii ugu horeysay ee dalka Soomaaliland uu gaaro xorriyadiisa iyo midnimadiisa waanad mahadsantahay runtii wasiir xirsi ayaan waxaan doonayaa bal inaan weydiiyo wasiir xirsi waxa jirta in go'aamo iyo heshiis meesha uu ka soo baxay qodobo la isku afgartay ma jiraan qodobo aan la isku afgaran dabcan mar walba caadada tahay shir walba oo la tago in qodobana la isku afgarto qaar la isku afgaran waayo dabcan anaga kulliba qodobadaan wadanay sidii wasiirku sheegay oo ay ugu mudnayd madaxbanaanida iyo qarannimada Soomaaliland inay jiritaankiisa ictiraafaan oo ay waxa weeye aqoonsadaan oo ay garwaaqsadaan in Soomaaliland iyo Soomaaliya laba wadan kala baxay ay yihiin baa ugu weynayd dabcan may kalamaanana qodobkii ahaa inaanu labadeedii si waxaan soo ictiraafno oo kala gurano oo dhameysano laakiinse qodobadii maanta aan isku afgaranay baan kala guranay waxaan u qaybsanaa heshiiska ama communique la soo saaray qorshe hawleedka ama geedi socodka wada hadallada ku socon doonaan iyo qaab dhismeedkiisa oo ay ugu mudnayd in mabaadi'da guud waxa weeye lagu heshiiyey ay ka mid ahayd in ay qiraan oo garwaaqsadaan oo maanta ay ahaato maalintii koowaad ay meel ku qoran tahay inay meel ku qoraan xasuuqii iyo gumaadkii loo geystay bulshada reer Soomaaliland sidoo kale sida uu wasiirku sheegay qodobo badan oo yani wax ku oola ayaa ku qoraa marka qaar lagu heshiiyay qaar lagu heshiin waana way jiraan kuwii lagu heshiin baa la qoraa kuwii lagu heshiin waayay dee waxa lagu heshiin waayay markaad sacaadatul wasiir markaad eegto qodobo ayaa isku heshiin weydeen horta waxa weeyaan qaranka Soomaaliland mar walba wasiir iyo madaxweyne iyo wadan shacab oo maanta shacabka Soomaaliland baa arrinka goostay gooni isu taaga iyagu haddii aanay qodobka aanay qirayn maxay markaa wada hadalladu ay macna sameynayaan dabcan way qirayaan oo runtu siday tahay qof yar iyo qof weyn adduunka caalamka waa ogsoon yahay runtu waxay tahay inay dadka reer Soomaaliland goosteen in ay gaar isu taagaan arrinkaas arrin shacbiga ka yimid weeye arrin la qarin karayo maaha arrin ay ummadda reer Soomaaliland iyadu lafaheedu u goostay masiirkeeda weeye taasoo maanu caalamku soconaya cid qasbi karta Soomaaliland ma jirto waa laga yaabaa inay muddo qaadato laakiin aakhirka waxa weeye dadka reer Soomaaliland talada ay goosteen ee gooni isu taaga
inay Soomaaliya noqdaan waddan jaaro ay walaalihiin wax wada qabsan karaan laakiin ka gedisan waa mid aan cidina bedeli karin ayana way ogsoon yihiin saasayna u dhici doonta insha Allah wasiir xirsi maadaama aad Somaliland iyo Soomaaliya ay hor fariisteen ma oran karnaa qodobka laftigiisaba aqoonsi ah markaad dhinac ka eegto dabcan Somaliland iyo Soomaaliya dabcan hor fariiskeedu waa markii shanaad maaha markii koobaad aqoonsiga midna waa aqoonsi caalami ah oo inaynu kala guranno oo aynu kala qaadano waxa weeyaan qolo waliba ay iimaansato waxeeda oo anaga dalkayga iyo dadkayga waa ku kalsoonay qolo waliba ay dalkeeda ku kalsoonaato laba dalo jaaro walaalaan ay noqono ama midna waa nooca midna waxa weeye in la soo fariisto la wada hadlo kaasoo yani waa markii shanaad la isugu yimaado fadhigii shanaad la isugu yimaado 2 sanadood ama 3 sanadood muddo ah shirar waaweyn oo beesh caalamku joogta baa la qabtay mari 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 marka taas dabcan waa aqoonsi waana muuqataa oo yani taasha kuma jiro qodobka aad isleedahay saacadda wasiir waydu kaga bixi kartaan shirka haddii ay Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo waa qodobkee baad oran kartaa waa qodobkaas ugu muhiimsan طبعا marka wada hadaladu ay laba dawladood wada hadlayaan waxyaabo badan oo isku afkaran waayaan baa jira waxyaabo badan oo marmarka qaarkood kala kacaan baa jirta hase muhiimadu waxa weeye in ay wada hadaladani socdaan in guul laga gaaro in si maaragtay civilized oo hagaagsan loo wada hadlo waxa garo dad waana la socotaa waxa nagu dhex jira dawlado kale oo ay Turkiga ka mid tahay talooyinkan meesha ku soo qaadnay waxa ka mid ah in hadii loo baahdo aan dawlado kale keeno inaanu keeno ashxaas inaan hay'adaha caalamka wargelino sida wada hadaladu u socdaan marka dabcan waxa muhiim ah in ay wada hadaladii midho dhalaan midhahaas aan filaynaa maanta inay kuugu horeeyay ka bilaabmeen oo sida walaalkay xirsi u sheegay anaan kuugu sheegay ay xasuuqa tahay oo wax qiimo weyn anaka noola tahay waayo dadkayga waa la baabiyey waa la rusheeyey dawladaha intay ka kaceen Hargeysa bamgareynayay dadkii baa qaxay dadkii qaxaya la dilayay in maanta la garowsado la yiraahdo dambi baa laga galay xukunkii foosha xumaa ee dictatoriga ahaa siyaad barre oo dadka reer Soomaaliland u geystay taalafteeda ayaa aqoonsi weyna oo aan ku faraxsanahay inay walaaladaydu fahmeen oo yiraahdeen dambi baa laga galay waa xasuuq baa dhacay dad baa loo gafay dhibaato weyn oo foolxu baa ka dhacday halka anoo runtii wax aad weynaan dadkaygu ay fahmaan hadliis in la garabsaday arrinka culus ee maanta mudada badan madaxayga ku jiray runtii waa iyadoo uu inoo soo gabagabay waraysigu wasiir xirsi qodobka haddaynu ku noqono xasuuqa ma waxay aqoonsadeen inuu ciidamadii siyaad barre oo rajiim ahaa ay burburiyeen jamhuuriyadda Soomaaliland marka oo goboladii waqooyi ee Soomaaliya ahaa ma saasay aqoonsadeen mise waxay aqoonsadeen in ay qarankii Soomaaliya ay mas'uul ka ahaayeen burburkii loo geystay xasuuqii loo geystay Soomaaliland dabcan qarankii Soomaaliya inay xasuuqa iyo burburka u geysteen ay aqoonsadeen oo dawladdii rajiimkii militariga ahaa waxay dawladdii Soomaaliya xilliga jirtay dawlad walba oo dhaxasha kursigeediina wax lagu xisaabtamaya wixii dhib ay geysatay dawladdu way isdhaxlaan marka dawladdii dhaxasha ee calankeedii sidata waxa weeye sheeganaysa dawladnimadeedii waxa weeye fadhida kursigeedii baa lagu xisaabtamay marka iyaga lagu xisaabtamay maaha macnuhu qof baa loo jeeda maaha macnuhu qabiil baa loo jeeda maaha macnuhu waxa weeyaan cid gaar ah la taagay waxay tahay ujeedadu dadkii reer Soomaaliland xasuuqa loo geystay diyaaraduhu intii Hargeysa ka kacaan oo bamgareeyaan ilaa xadka intii ka gudbayeen ka talaabayeen ay garaacayeen haweenka iyo carruurta shacabka noocaas la laayay ayaa waxa weeye inay garwaaqsadaan oo ay qirtaan oo ay waxa weeye ay tahay genocide tahay ay runtii tahay arintu oo yani arinta la isweydiinayay qaranayaan taa weeye qirashadeeduna maaha sida aan sheegay shakhsi iyo qabiil waxa weeyaan ciddii geysatay inay dawladdii Soomaaliya ahayd dawladda Soomaaliyana loo haysto laguna xisaabtamayo waxa weeyaan ayna tahay qadiyadda Soomaaliland iyo bulshadeeda wax arrin aad ugu weyn ugu dambeyntii qodobka inteen leeg baydun ka murmaysan inay qirtaan in ay xasuuqa geysteen Soomaali weyn runtii buu sahlanay muddo badan buu nagu qaatay habeena badan buu nagu qaatay aakhirka waxaanu isla garanay inaan nahno atrocities kuna waxa weeye xasuuq waxa weeye dil fool xun oo cadowtinimo ah
oo dad la xasuuqay oo la dilay oo morales la mariyey inay ahaayeen marka mudday nagu qaadatay laakiin waanu ku faraxsannahay inay maanta documentka aanu saxanay ku jirto atrocities oo xasuuq oran isku afgaranay inuu xasuuqaasi dhacay sidaa walaalkii xirsi uu sheegayna inay ahayd dowladdii siyaad barre ee militariga ahayd ee wakhtiga xukunka haysatay aad iyo aad baanad mahadsantahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sacaadata alwasiir maxamed iyo xirsi aad baan